Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada. Maanta waxaan isla fiiri doonaa tuugadii ugu qosolka badneyd ee abid dunida soo martay. Saaxiibkeena u dhashay dalka Belgium-ka wuxuu isku dayay in uu dhaco bangi ku yaala isla waddanka Belgium-ka, laakiin ciladiisu waxa ay ahayd in uu maqalka ka adkaay oo wax maqalkiisu aad buu u adkaay. Bastooladiisa ayuu hore u soo qaatay, kadibna waxa uu soo aaday dhinacii bangiga. Bangiga ayuu hore u soo galay isagoo walwalsan oo la meel wax ka bilaabo. Markuu bangiga dhexbartankiisa taagan yahay, waxaa ku soo kacay mid ka mid ah shaqaalaha oo weydiiyay maxaa kaa caawiya, balse waxa uu u maleeyay bastoolada ay haysatay mid sax ah mise mid been ah. Hal mar intuu la booday bastooladii uu wajiga ka saaray, haa waa mid sax ah. Intaa kadib dadkii bangiga isla joogay ayaa dhammaantoodii isku soo wada yaacay. Markii la ogaaday ninkan inuu hub sax ah wato, ayaa gadaal laga garaacay booliiska maadaama ninkan wax maqli karin. Intii la aamusinayay oo la leeyahay sax baa lagu siinaa lacag, ayaa waxaa ku imaaday booliiskiisa. Sidaas ayaana loo qabtay oo xabsiga loo geeyay. Dhaga adeegu maxaa ku geeyay shaqada lahayn. Tuugan lagu magacaabo Tikudi oo u dhashay dalka Ruushka laakiin asal ahaantiisa ka soo jeeda Nigeria ayaa waxa uu qorsheeyay in uu dhaco dukaan ku yaala isla Ruushka. Inta uu qalabeysanayay ayaa waxaa ku soo dhacday in uu sii waco dukaanka si loogu sii diyaariyo alaabta uu rabo oo dhan. Sida ayuuna sameeyay, wuxuu sii wacay ninkii dukaanka fadhiyay isagoona u sheegay in loo diyaariyo dhammaan agabka yaala dukaanka si uu hore ugu sii qaato mar dhowna uu soo aadan yahay. Ninkii dukaanka lahaa ayaa waxa uu la xiriiray booliiska wuxuuna u sheegay arrinta. Booliiska ayaa durba soo gaaray dukaanka ayagoo dhinac walba ka fadhiistay. Tuugii oo leexsanaya oo isla waxaagii waa lagu diyaariyay ayaa wuxuu soo istaagay iridda dukaanka. Sidiina ayayna booliis ku qabteen oo yiraahdeen keen adiga gurigaaga saxda waa xabsigee. Xariifkan kale waxaa lagu magacaabaa David Abuka. Waxa uu dhashay dalka Ivory Coast. Waxa uu qorsheeyay in uu dhaco sanduuqad ku taala isla Ivory Coast. Waxa uu soo qaatay bastoolad iyo boorso oo isla ku rido alaabta dhan. Markaa dukaanka tagtay, sida ayuuna sameeyay oo uu soo baxay wuxuuna tagay dukaankii wuxuuna ku yiri ninkii lahaa soo qabo boorsadan qaado oo ku soo rid dhammaan waxa haysid. Laakiin wuxuu rabay in uu boorsada u dhiibo balse wuxuu u dhiibay bastooladii. Cabaar kadib waxaa ku soo dhacday in uu qalad sameeyay. Sidaas ayuuna ku arkay bastooladii oo lagu hayo. Meesha ayuuna ka cararay wuxuuna hore u sii qaatay baaskiil hore sii yaalay. Maxamed Qaasim Sacuudi waa nashqadeeye u dhashay dalka Mareykanka balse wuxuu ka soo jeedaa asal ahaan dalka Qatar. Waxa uu isku dayay in uu sameeyo fal ah in uu lacag been abuur ah uu sameeyo. Si fiican ayuu uga fikiray sameynta lacagta wuxuuna u soo saaray dollar aan waxba ka duwaneyn dollarka laga isticmaalo dalka Mareykanka. Waxa uu u tagay mall u dhawaa si uu alaab uga soo gato baaqigiisana uga soo ceshto. Shandada ayuu ka soo buuxsaday alaab waxa uu rabo oo dhan wuxuuna la kor yimid ninkii reception-ka. Alaabtiisa ayaa loo qiimeeyay waxa ayna noqotay $500. Si uu lacagta u bixiyo wuxuu jibka kala soo baxsaday lacagtii uu xaafadiisa ku soo farsamaystay. Farta ayuuna ka saaray lacagtii uu haysto dhan ninkii reception-ka. Wuxuuna ku yiri saaxiib baaqiga ii soo celi inta aan kugu leeyahayna ii soo sameey. Balse markuu saa u fiiriyay ninkii reception-ka lacagtii wuxuu ogaaday inay lacagtani tahay mid faalis ah. Wuxuuna hore ka wacay booliiska wuuna wargeliyay. Saas ayaa ninkii lagu soo qabtay waxaana lagu xiray xabsiga. Balse qaladka uu lacagta ka sameeyay ayaa ahayd in uu ka tagay qaybtii lagu qorayay lacagta qiimaheeda oo ah ama $100 ama $20. Gaagan kale ayaa waxa uu go'aan ku gaaray in uu xado dukaan u dhawaa balse intuu saxadin ka hor ayuu is yiri bal ma dadka ogeysiisid inaad dukaankaas dhici rabto. Wuxuuna Facebook-ka ku soo bastagareeyay in uu dhici rabo dukaan. Isla markiiba waxaa ka war helay qorshihiisa booliiska. Sidaas ayaa lagu soo qabtay oo xabsiga loogu taxaabay.